dhanaana waa tuulo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna hoos timaadaa magaalada Marka ee xarunta gobolka. deegaanka dhanaana waxa uu saaran yahay xeebta waxaana 5 kiiloomitir u jira deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhawaan waxaa markii ugu horeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sifeeyeen maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo u madax banaan howlgalladaasi waxayna ka xoreeyeen dhul ballaaran oo xeebta ah maleeshiyada balse xilli hore oo maanta waxaa halkaasi gaaray mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada uu heliyay taliyaha qaybta 12 Abriil General Umar Dheere taliyaha qaybta 12 Abriil ayaa ugu horeynba u sheegay cutube ka tirsan ciidamada inay dawladda la jirto ciidamada mar walbana ay isku day doonaan sidii madaxda iyo ciidamada ay si gaar ah isaga warhayn lahaayeen. waqtiga waxaad arki doontiin madaxda qaranka oo halkaan idinku timaado sida maantaba madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay halkaan idinku timid waxay u socdaan waxa ka hadli doona madaxda aniga laakiin ujeedadaydu waxa weeye inaan aygana ku soo dhaweeyo aan idin soo gudbiyo amaanta idin taala qaranka Soomaaliyeed. gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhiirigeliyay in markii ugu horeysay taariikhda burburkii kadib ay hormuud u noqdaan inay muujiyaan madax banaanid ciidan. markii runta laga hadlo dad badan ma aysan filanaynin in askari Soomaali ah kiiloomitiraad intaas la eg oo soo lugeeya isagoon gaari ciidan saareen isagoo dagaal ku jiro isagoo cadow baacsanayo haddana ay sameystaan askartu fadhiisin aysan ku wehelinaynin ciidan ajnabi ah oo ay taageero ka helayaan. arintaas runtii waa arin dad badan ka maajisay waa arin muujinaysa in ay jiraan wili ciidan Soomaali ah oo diyaar u ah in ay soo celiyaan haybadii lagu yaqaanay ciidankii Soomaaliya ay lahaan jirtay. General Liban Ali Yaro gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyagoo aaminsan inay ugu adeegayaan diintooda iyo dalkooda. ani waxaan rabaa qodob yar inaan idin xasuusiyo bas oo shariicada islaamka ama diinta islaamka markay ka sheekeynayso waxa waaye jihaadka ay ka sheekeynayso waxa qofka markuu soo dhaqaajiyo lugihiisa waxay gaaraan boor. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qof kasto oo lugihiisa u boorowaan jidkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa waa Ilaahay jirkiisa wuxuu ku ilaaliyaa naartu ka ilaaliyaa. marka anagoo aan ku anbaqaadayno ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo aan rabno wadankeena macnaha jihaadka lagu sheegay kaliya ma ahan qofka in oo maalkiis kaliya ilaali ma ahan jihaadku waxa kamid ah dalkaaga inaad ilaaliso waa jihaad waay waa inaad ilaaliso cirdigaaga jihaad waay waa inaad ilaaliso maalkaaga. marka nimankan hadda aan la dagaalamayno oo mooryaanta oo mooryaan diineedka waxa waaye waxaan aaminsanahay anaga ugu xaqni badan jana inaan galno. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muujiyay kartidii lagu yaqaanay ciidamada Soomaaliya waxayna ka xoreeyeen dhul ballaaran oo ku teedsan xeebta maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo furay bog cusub oo muujinaya in Soomaaliya ay yeelanayso ciidamo la wareegi kara sugidda amniga dalka.